Bismillahirrahmanirrahiim waxaan daawadayaal afur wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo qaab kastoo aad markaasi noola socotaan kusoo dhawaada barnaamijkeena qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya qodobada qaybtan aan ku eegi doono waxaa qayb ka noqonaya haddii barnaamij uu ka noqdo muuqaalka sirdoon ee waqtigan la baahiyay iyo weliba qaabkii loo itaale ama loo abaaray halka uu ku sugnaa ama hoyga uu ka deganaa Tehran hogaamiyaha dalkaasi Iran ee markaasi geeriyooday iyo weliba sidoo kale arrimaha sirdoonka ee la xiriira waqtigan shaaca ay ka qaadayso Mareykanka iyo weliba sidoo kale Israel Mareykanku 14 daqiiqo gudahood waxa uu shaaca ka qaaday gantaalka ku dhacay hoyga uu deganaa hogaamiyaha ee Iran Ayatollah Ali Khamenei kadib duqeynta oo uu geeriyooday iyo weliba sidoo kale qaabka loo abaaray sirdoonka ay adeegsadeen waxaan sidoo kale eegi doonaa guud ahaanba Israel ayaa holcaysa oo weliba dab culus ka kacaya iyadoo gebi ahaanba ay basbeeleen guryihii ugu dhaadheeraa ee ku yaaleen magaalooyinkaasi baarlamaanka Israel ayaa kulamo ay yeesheen waxa ay sheegeen in aan markaasi la doobi karin muuqaalada markaasi burburka iyo weliba dhibaatada soo gaartay Iran gantaaladeedii ugu horreeyay ayay tijaabisay waana u suurta gashay in gebi ahaanba ay dhulka ay dhigi karto si kastaba ha ahaatee waqtigan waxaa hirgalay talaabadii Iran oo ahayd in gantaaladeedu ay tijaabiso maadaama muddo muran badan hareereeyay qaabkay u diyaarinaysay iyo weliba goobta ay ku diyaarin lahayd waxaan sidoo kale shaaca ka qaadi doonaa sababta keentay in Israel waqtigan ay diidan yihiin in gebi ahaanba la soo bandhigo muuqaalada burburka iyo weliba sidoo kale dhibaatooyinka gaaray taasi oo u muuqata waqtigan in saameyn xooggan ay kala kulantay weerarkii ugu horreeyay ay ku qaaday Iran markan saraakiisha Iran waxa ay shaaca ka qaadeen in aanan si gabasho lahayn ay diyaar ugu yihiin in meel kasta ay weerari karaan waxa sidoo kale Iran maanta iyadoo oo barordiiq u yaalo haddana dhinaca kale weerar culus ay ku firsay maraakiib shidaal oo waliba Mareykanka u lahaa qaybtan ayaan rabaa saaxiibayaal inaan idinku kula wadaago halkan saaxiibayaal idinkana noo cimaamado channelka subscribe ha inaga hagaranina inta bisha Ramadaan lagu gudjiraan rabnaa inaan 5,000 ilaa 10,000 aan u dabaaldegno adiga kaliya ayaa inaga dhiman like ta saaxiibayaal xaqiiqada idin sheego meel dheer ayay ina gaarsinaysa fadlan muuqaalka markuu ugu horeysa like noo saar mahadsanidin soo dhawaada arrin sirdoon oo la xiriirta oo waqtigan shaaca uu ka qaaday Mareykanka iyo weliba Israel ayaa soo baxday xilli si weyn loogu muransanaa qaabka iyo weliba sirdoonka adag ee ay adeegsadeen Mareykanka iyo weliba Israel laakiin muuqaalo drones iyo weliba sidoo kale maraakiib ah ayaa markan banaanka imaanaya talaabada ay qaaday oo ahayd Israel iyo weliba fududeeyaha Mareykanka oo si weyn garab ugu noqday in la abaaro ama la itaalo halka uu magaalada Tehran uu ka degan yahay hogaamiyaha Iran Ayatollah Ali Khamenei oo hadda markaas geeriyooday weerarkii iyagu ay ku qaadeen muuqaalkan oo si adag baraha bulshada u qabsaday ayaa Israel ka soo fakaday kadib xilli in muddo ay ku muransanaayeen fulinta weerarka iyo weliba talaabada loo qaaday taasi oo lagu miisay si kasta oo weliba ay u qorsheyn karaan in gebi ahaanba ay kaga taqluusi karaan Ayatollah Ali Khamenei iyo weliba saraakiil sarsare ee hogaaminayay weerarka ay markaasi muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn ay u qorsheynayeen in Iran dhankeeda jawaabi culus ay ka bixin doonto Mareykanka ayaa waqtigan iyo weliba sidoo kale Israel oo wada socda ayaa gebi ahaanba talaabada tani shaaca ka qaaday iyadoo Mareykanku si adag ugu digayo in qorshe kale culus oo weliba talaabooyin uu qaadi rabo taasi oo ku mildahay ama ku lifaaqaya sidii mar kale ugu geysan lahaa weerarka culus dhinaca kale Israel waa ay basbaashay weliba guriyaashi ugu waaweynaa ayaa holcaya tan iyo weliba xilligii weerarka maanta mar kale Iran ay ku qaaday in dabaqadii ugu dhaadheeraa oo waliba Israel hoyga wahayd gebi ahaanba dhulka la soo daadshay sida la xaqiijiyay tira in ka badan 200 oo dad ah ayaa halkaasi ku dhintay iyadoo Iran wali ay sheegtay in ay tani ay u tahay midii bilowgu ahayd laakiin Israel ayaa baarlamaankeedu waqtigan shaaca ka qaaday in la qariyo aanan la baahinin gantaalada culus ee Iran ay sameysay halka ay ku dhacayaan iyo waliba saameynta ay yeesheen Iran in muddo ayaa laga hortaagnaa in gantaaladeedu ay tijaabiso laakiin marka kani way u hirgashay waliba talaabada ay qaaday way gashay oo waliba Israel ayaana lagu qaaday markan Mareykanka iyo waliba Israel oo isgarabsiinaya ayaa hoos u dhigaya dhaawac culus ka soo gaaray talaabada Israel
iyo weliba sidoo kale burburka culus ee waqtigan ay wajahday. Iiraan markan way u diyaar garowsan tahay. Saraakiisha kale ee la wareegay xukunka ayaa shaaca ka qaaday in maalmaha soo aadan gebi ahaanba dhulka la dhigi doono Israa'iil iyo weliba sidoo kale dhammaan saldhigyada Mareykanka uu ka joogo guud ahaan bariga dhexe iyo weliba dalalka Afrika intoodii oo dhan. Talaabada Iiraan markan ay qaadi doonto aad ayaa looga cabsi qabaa in qorshaheedu ay saameyn xooggan ay ku yeelan karto dunida oo dhani. Maraakiib culus ay maanta mar kale ay weerartay Iiraan weliba gebi ahaan dhulka ay dhigtay shidaalna ay sideen oo Mareykanka u iska lahaa. Haddaba wixii kale macluumaad ka soo kordho qubanayaashana dambe aan ku qaadan ligi doona. Noo cimaamada channelka subscribe noo saara, like saara muuqaalkana si meel dheer u gaaro. Mahadsanidin.